السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتان ku saaxiibna bartadii youtube-ka hani jaafuli soo dhawaada walaashiin hani jaafuli janaalkeeda haddii aad ku cusub tahay please subscribe saar like dheh share dheh comment ka bixi aad iyo muhiim noogu tahay inta badan dadka soo gala janaalkeyga yacni way daawadaan muuqaalada subscribe lama saaran please waxaan kaa codsanayaa waxba ma kaa dhibaysa barta yar ee gududan inaad dhag ku siisay fartaada haddii Allah uu dal raali uu ka noqdo adigoo aad u mahadsan muuqaalo badan oo aad ka faa'iiday insha Allah idin soo galin doonaa haddii Allah uu dal uu raali ka noqdo maanta hani maxay idin wadaa waxay idin wadaa burkaas aad ku quruxda badan oo markii aan soo diyaarino oo soo habeynay sidaas aad u jeedaan ku soo baxay burkan waxaa la dhahaa luqmatul qaadi ama cawaama la dhahaa waa bur carabta ee caan ku yihiin aad u isticmaalaan gaar ahaan kuwa shaamiga ah dadka reer shaam aad u isticmaalaan marka waa kaasa burkaasa idiin soo diyaariyay maanta haddii Allah uu dal raali ka noqdo anaga magaca isaga baxsanayna bur sokor aan iska dhehayna ma fahantay Soomaali hadaan nahay marka insha Allah waxa ku soo dhawaataan qaabkii aan u diyaariyay sidaan u diyaariyay insha Allah ila socdo haddii Allah uu dal raali ka noqdo meeshan waxaan ku haystaa bakeeri halfkiis oo biyo ah biyo caadi ah ayaa meeshan ku soo shubtay bakeeriga biyaha markii aan ku soo shubto waxaan ku soo shubtay 2 qaando oo maxaan lahaayay fixise ah ama leebito ama khamiiriso aan leebitada waxaan ku soo shubtay dhaladaas seeti dhala fiinta waaye marka waxaan leebito waaye maahan hawo inay gasho ma la rabo soo waxaa sameynay weel daboolan ku shubo marka bacay ku imaataa wayna badan tahay marka hal maalin iyo 2 maalin 4 maalin xataa ma isticmaalaysid soo waxaa fiican inaad ku shubatid dhalo af xiran leh si aad muddo u isticmaasho waxaaga yoon ka halaabin sidoo kale meeshan waxaan ku soo shubtay 2 qaando oo bur ah burka caadiga ah 2 qaando ku soo shubtay alaabtaan aan rabaa inaan si fiican isu dhaxgaliyo aan meel dhigo wii qamiirto ka bacda aan isticmaalo ma fahanteen waxaa ku soo shubtay oo kale intood 2 qaando oo sokor ah marka insha Allah 5 daqiiqo ka bacda burkaaneeto sida uu ku soo baxo waa isla arki doonaa intaana aan isku qasay intaana si fiican isu qasaa daboola dhab ku siinaa 5 daqiiqo sugaa ma fahanteen marka waa kaasaahe sidaana u jeedaan ku soo bax burkeeni oo adkaada wax faxay camal oo noqdo leebtid yacni way milantay inay milanta ma aragtay aan ka rabnay soo way milanta hadda qaybaheena kala gudagaleena waxaa inta ku soo shubanaa leebtidii hadda aan haystay iyo alaabtii aan isku soo darsaday daati ma aragtay maxay ahaday softa u soo noqdeen u jeediin oo maleena jileec markaas waxaan ku soo shubanaa haddana bakeeri oo biyo qandac biyahaneetu markaan qandac waa caana u isticmaalayno li'annahu caanaha gadaala ka isticmaali doona iyagoo budo ah inaan ku darsanaa rabnaa ma fahanteen 4 qaando qiyaasta oo saliicade ahna waan ku soo darsaday wax yar oo cusbo ahna waan ku soo darsaday cusbada dhadhan ay ku siinee in dhanaan meesha ma laga rabo laakiin aadi wixii ku siinay cusbada dhadhan oo maxaa ahayd macaan ay ku siinay haddii Allah awood karaan noqdo waxaan ku soo shubanay sidoo kale tood heel burkaaneet sidiisaba dada u isticmaalaya arkay maxaa la dhahay vanilla ma u fiicno in lagu isticmaalo ama carfiso in lagu darsado laano nakahada burkaan oo dhanaa waxay tahay nakahayl waxaa gadaal looga darsadaa maxaa la dhahay sokortiisa sokora lagu daraa Soomaha waan isla arki doono sokortaas heela lagu daraa soo in nakahadi ay kala dhunto ama yacni oo shak qof gal ma fiicno waxaa fiican in hal caraf uu lahaado sokortana ma ku darsan karna ma ogtahay carfiso soo sokonta maadaama aan heel ku dareeno inaan burka heel ku darno aaday muhiim u tahay marka waxaan sameynaynaa bakeeri biyaha meesha ku soo shubtay waxaan sidoo kale ku soo shubtay maxaan lahaayay 2 koob oo bur ah insha Allah burku wuxuu noqon doonaa haddii Allah uu dal karaal noqdo 4 koob ila socdo marka insha Allah bilis janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh like dheh share dheh comment ka bixi muhiim ay inoo tahay inaa naga soo mid noqotane aadey maxay ahaday noo farxad gelinaysa oo bahada maxay ahaday ku xiran janaalkayga ka mid noqotid waa kana bakeeriga saddexaad ku soo shubtay bakeeriga afaraad insha Allah ku soo shubanaya haddii Allah uu dal raali ka noqdo kaasa 4 bakeeri marka meeshan waxaan ku haysanaa bur bakeeri oo maxaa la dhahay biyo iyo saliid iyo alaabta data aan isku soo darsanaa meeshan ku haysanaa ma fahanteen marka waa kaasaahe aan isla socono caanaha marka hadda inaad ku soo dartid waaye caanaha 4 koob 4 waxaan la dhahay qaando oo caano aan ku soo shubtay caano booro waaye caadi 4 qaanda marka meesha saytu ku soo shubtay oo caano booro waxaan sameynaynaa marka waxaan ku darsanaynaa waraangada waxaan rabnaa inay noo siiso suuf ka dhigtaa burarka ma fahanteen rootiyada iyo burarkaaneet iyo
aad ay u anficaysaa wareengada ama cornflour ama nasha sa u taqaanidbo. Marka intaana isku soo qasayna haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan gadaal uga soo darsan doonaa bakeeri biyo ah insha allah. waa iska bixinaa marka qaandadanayta hadda wax micno ii sameynaysa mala burkaanayta waxaa la rabaa si sharaf leh inaan isu dhex geliyo ma fahantay oo si sharaf leh inaan isu dhex qaadsiiyo. marka sidii cajiinka loo qas maaragtay yaa canjeero qaso idinka mid weli canjeerada sidii loo qasay maaragtay aa loo soo dhacdhabaa burka ma fahanteen. marka insha allah saas ayaa yeelaynaa bakeeri biyaan kusoo darsanaynaa ka bacdina kaamiradu waaba jarayaa ka bacdi waxaan sameynaa dhulka intaa dhigto maaragtay aan soo garaacayaan ku dheh miirka maaragtay aan usoo toosiyey. mungkin marka sadaana kusoo bax markaas soo garaacay oo soo dhacdhabe saana kusoo bax. marka hadda waxaa sameynaynaa marka qeybihii dambe gelaynaa muddo aad 30 daqiiqo camal oo meel ii yaale aad u soo faxay maasha allah yani weelka uu soo buuxsamay subxaanallah aad u qamiira ma fahanteen. marka waxaa sameynaynaa weelkaana soo diyaarsanay waxaa sameynaa hadda shiiradii aa sameynaynaa ama maxaa la dhahayay sokorti oo lagu daraayo burka meesha 2 bakeeriyo waxaa kusoo shubtay biyo ah iyo 2 bakeeriyo oo sokor ah. sokorta maxay ahayd waqti badan inay iga qaadato marabo teeda kale inay biyo iga naqato marabo bilii sokorta si fiican isaga kari laakiin ha karinin ilaa ay ka gursato. lama rabo in burki markii la dhex dhigo uu burki qoyaan intuu noqdo gudaha ee sokorta gaarta ma la rabo in sokorta inta la marmariyo si shumowga maaragtay aan baalbaalowga kusoo baxdo kor uga qalashane ma la rabo iyadana. bur saliida aan dhahay sokortaanita waxaa kasoo dhigtaa si dhexdhexaad u kari biyo oo socdaha ku ahaato yana ka adkaanin yana biyana kaana qanin ma fahantaa aad qiyaasta aad fahmaysa haddana waa ku tusi doonaa insha allah qaabka ay ugu soo baxdo. waxaa ogaa yar waxaan kusoo daray heel ah geesa iska saarta marka iyada sokortu way ii bislaaneen burka ka sheekeeyay suu noqday intuu hadaata ahaa intuu hadda yahay subxaanallah aad u qamiir maahno. marka waxaa sameynay si fiican yani gacanta mu dhex qaadsiinaysid aariyada bisaa ka biinay hawadaasaa ka biinay bis laakiin yani si fiican mu isu dhex gelinaysid oo yani mis dhex qaadsiinaysid. marka geesaha lay kasoo fujinay xoogaa dhaxda isu keensanay hawada wax yar ka bixinay ma fahantay ma la rabo inuu si fiican isu dhex galo oo sidii koo markii la qasay camal uu noqdo ma fahantay. marka waxaa sameysanaynaa insha allah hadda saliidiyaan dabka soo saarnayna saliidaan iyto kaleeto baaquligaas ku soo shubtay qaandadaana soo dhex gashana insha allah waa ku goosanaa wax biyo ah ma aragtay ma isticmaalay gacanteydaas aan ku soo jaraaya biyana hada meesha aan saliid marba hada isticmaalaa ma aragtay biyaha waa necbaa inuu dhacanto ku dhaw igu soo boodo ma fahanteen. soo waxaa sameynaa qaandadaas saliid ku soo dara mar walba oo ku gooyna hore ka dhacay weel saliid loo ogtiin oo burtaabta horu ka dhaca ma hino. marka saas ay yeelaa waa sidaas ku soo dhameena hadii Allah wada loo raali ka noqdo waa soo wada jarjaraya saxankane aan dhahay ama birtaawadane waxaa sameynaa inaa buuxisid isku day mar walba aa buuxisid waa mar walba maxaa la dhahay alxaq adinkii salaada casr. الحمد لله على نعمة الإسلام إلها ما هاد إسكاله. marka waxaa sameynaynaa burkeena meeshaas ku soo shubnay waa soo buuxiyay yani birtaawada waa soo buuxiyay burkii inuu saadhood markii yani aan rabay inuu ii gadgadoobo ma aragtay uu space uu ku kala carar uu soo ku yeelan burkan qofta sameeysa taqaano ma la gadiyo ma gadismaayo sidiisa banaan basaana qaandada uu gadgadina ugu toosina asaa yani marba dhinac u baxaayo soo space inuu san helin maxay heedeen isku dayaya ama meel oo yani banbanaan. marka qaandada saasa ku sameeynaa ma fahanteen yani gadgadismaayo burkaanayta marka waxaa qaandada inaa saas dusha uga marmarisid uu taraaraxa dhan walba markaas uu ku gududanaa ma fahanteen. ujeedaa umaleynaa sidaa sameyno insha allah waa gadinaa daadhaada ilaa beri meeshoo taagnaan ma fahantay haba hal dhinacoo kaa gududanaa.
marka waa kaasahee burkeena saana ujeediinuu ku socda xaaladiisa insha allah fideogan uu nagu sii dheeraanaya marka waxaan rabaa inaan xoogaa maaragtay soo gaabiyo oo qeybtan bis aan tuso qeybaha kaleetoodna ani aan kali maxay heeday soo sameeyo haddii allaha uu dal uu raali ka noqdo mahadsantii aan khiyaarteeda biliis janaalka haddii aad ku cusubta waxaan sameysaa subscribe inoo saar bartigeera gaduudan farta dhag ku sii asxaabtaada kalena sii gaarsii insha allah burkeena sidaasaa ujeediinuu kusoo baxay oo quruxda badan leh marka laba qeyba un kala qeybiye maahan qeyb waxaan ka dhigayaa condensed milk ama xaliib mukathaf maxay ahaydey ku darsaneynaa macaan caana macaankaaniita hadda sajil waayo laakiin anoo sameynayo janaalkayga wuu ku jiraa dib ugu laabo waad kasoo helaysaa gurigaaga ku sameysanay ma fahantay liannahu badanaa dukaamada ma yaalan maahano laamiyada ama meelaha supermarketyada waaweyn ayaa laga helaa marka intii aad bixi lahayd gurigaaga ku diyaarsan kartaa anoo diyaarinayo wuu ku jiraa janaalkayga dib ugu laabo waa kasoo helaysaa kana soo faa'iideysa insha allah sokorteena marka saasaa ujeediinay kusoo baxday oo maxay ahaydey mana naga adka oo wax fadhiyo oo maxay ahaydey sokor caadi ma aha mana ahaan biyo burkina saasuu kusoo baxay maasha allah tabaaraka allah dhexdiisa fiir suufa oo maleysahan ku dheh waana maxay ahaydey muqarmish dushiisa meeshaas marka kusoo aruursanina haddii allaha ugu dal raali ka noqdo kabacdi waxaan ku shubayaa baaquli aan kusoo shubaneynaa kusoo diyaarsaneynaa qoryahaas yaryarka ma aragtay istakiinka maxay ahaydey marka aan ku sureynaa liannahu dadka ma aragtay sokor waa moogta waxaaneyti qaandana maku qaadmaayo inaa ama farkeeto qofka aa ku siisid ama aa ku siisid maxaa la dhahayey qorigaas yarka si ugu qabsada fiican marka waa kana burkeena meeshaan kusoo gadgadisana saliid baan dhehee sokor badan iga raacda maraba qeyb waa hadda moogtaa qeybo kaloo badana ii dhimana sokorta u reeban wayaa qeybtaa marka intaa kusoo gadistay istakiinkeena yaraan dhacdhac ku siisaneynaa si ugu fududaa dadka cunaayo maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo walaa macaankiisa yaa casiriye aada u fudud waa qaxwadaada qaraarta ima aragtay intaa usoo karsatid tv intaa tagtid maxay ahaydey tartiibtaa ma aragtay mees ugu cun maasha allah caafimaadku cuna insha allah waxaa rajeynaa inaad tijaabin doontaan haddii allah awoodal uu raali ka noqdo oo aad ka heli doontaan feedbackna ay soo siin doontaan commentiga ay ugu soo siin doontaan insha allah marka ka faa'iideysa haboone waa kaasa istakiinka saasa ususuraa istakiinka kan oo findhicilka meel dhahay waaye haddaba maxayd waxaan ka bixiyey kartoonkiisa ma aha wax la isticmaalo markii findhici la dho iyo maxaa la dhahay iyo cunto in lagu daarto in lagu surto yacni xoogaa waay maahan oo marka waa kaasaa nadiif waa qoryahaaseti marka heelkeena wuu nooga dhex muuqdaa maasha allah tabaaraka allah waxaa rajeynaa inaad tijaabi doontaan akhyaarteeda aada u mahadsantihiin inta aan ku kulmi doono muuqaal kaleetood waxaan idiin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad insha allah iyo inaad balanta oofisaan subscribe-ta aad saartaan like-ta commentiga sheerka waa mahadsantihiin muuqaal kale intaan ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu